wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka waxay nasiib u yeelatay inay ka soo qayb gasho wareeggii 11aad ee barnaamijka isxilqaan ku dhiso dalkaaga oo ay ka qayb qaateen dhammaan hay'adaha dawladda khaasatan maaragtay civil servant-iga oo dawladdu ay markaasi ay maamusho runtii wasaaraddu markasta waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato qayb libaax oo maaragtay mug leh shaqaalaha rayidka ee dawladdan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maadaama runtii bilicdan iyo quruxdan tiyaatarka iyo maktabadda iyo matxafka ay leeyihiin ayagoo ay dhiseen runtii wax aad u wanaagsan waay aadaan ugu faraxsanahay sida hadda ay wax yihiin iyo xaaladda meesha ay marayso wax lagu faani karo waay mideeda kale wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha shaqaalahoodan aaday u mahadsan yihiin bilow ilaa iyo dhammaad matxafkii iyo tiyaatarkii iyo maktabadda saddexda meeloodba way ka qayb qaateen runtii waxa waaye haddaana annaga dalkeenna dhisan cid noo dhisaysa ma laha barnaamijkan oo runtii fikirkiisii markii hore madaxweynaha lahaa wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad loogu guulaystay oo ahaa marka runtii maadaama hadda ay tahay wareeggii qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad qayb saddexaad ayaa jiri doonto loo gudbi doono shaqaalaha rayidka ee dawladdan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maadaama runtii bilicdan iyo quruxdan tiyaatarka iyo maktabadda iyo matxafka ay leeyihiin ayagoo ay dhiseen runtii wax aad u wanaagsan waay aadaan ugu faraxsanahay